gudoomiyaha deegaanka Ceel Cali Aadan Cali Seedo ayaa waxa uu ka hadlay dhagax laga qaaday deegaanka Ceel Cali oo maalmo ka hor lagu qabtay duleedka magaalada Muqdisho iyo sidoo kale hadal shalay ka soo yeeray siyaasiyiin ka soo jeeda magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Waadin salaamay TV-ga dalka waxaan rabnaa inaan ka hadalno hadallo kala duwan oo maalmihii la soo dhaafay warbaahinta la isla dhaxmarayay ay kala sheegayeen mas'uuliyiin kala duwan federaal iyo Hirshabelle ka kala tirsan hadalladaas oo ah hadallo iskhilaafsan kuna yimid dhagaxii dhawaan laga soo qaaday degmada Ceel Cali meel u dhow hadallo shalay ka soo yeeray xildhibaanada qaar oo magaalada Muqdisho shir jiraayad ku qabtay oo ay sheegeen in dhagaxaasi ganacsata ay soo iibsatay laguna soo iibsaday si oo heshiis ah oo dadka deegaanka lagala soo xaashimay taas ayaan rabnaa inaan beenteeno oo dhagaxaas uu yahay dhagax qoray afkiis lagu soo qaatay oo dhiig ku daatay dadna ay ku dhinteen laba qofna ay ku dhinteen sida hore aad warbaahinta ugu maqasheen dadna ay ilaa hadda u xiran yihiin oo geeri iyo nolol meel ay jiraan aan ilaa hadda gacan lagu haynin dadna ay dhaawac yihiin oo isbitaalada ay u jiifaan dhagaxaas waxaan filayaa muddo 7 maalmood ayaa dagaalkiisa uu socday oo hadba maalin la isku soo rogaal celinayay ayadoo aakhirkii tagtay inay dhagaxaas la soo baxaan kooxdii argagixisay kadib markii la keenay Buqa Qable degmada Buqa Qable oo muddo 10 maalmood uu yaalay waxaan filayaa cid kasta og Buq markuu yaalay in ka badan 26 odaya oo waxgaradka degmada Ceel Cali ka soo jeedo qaar ay ka baxeen Beledweyne ayaa halkaas u tagay inay dhagaxaas ay kala xaashimaan al-shabaab si ay ugu soo celiyaan waxay joogeen muddo 4 habeen ah aakhirkii wixii laga meermeeray waxa loo sheegay dhagaxaas in shabaab ayaga ay qaateen cidii ka xoog badanna ay ka qaadan karto oo kaliya aysan jirin cid ay kala xaashimayaan iyo cid ay ka hibaysanayaan xoogna ay ku qaateen si bareerena ay ugu cadeeyeen inay dhagaxaas xoog ku qaateen cid ay kala hadlayaan iyo cid ay ka baryayaan aysan jirin waxay u jawaabeen cidii awood leh oo naga awood roona naga qaato hadii kale anaga dhagaxaas xoog ayaan ku haysanaa danihiina raacda ayaa lagu yiri dadkii waxgaradka halkaas ay kala tageen sidoo kale waxa ka hadlay mid kamid ah nabadoonada ka soo jeeda deegaanka Ceel Cali sidaad ka warqabtiin arrimo ayaantaan bal isla dhex socday ku saabsan dhagax laga soo qaaday degmada Ceel Cali ay soo boobeen niman deegaanka gacanta ku hayo la wada og yahay oo nimanka argagixisada ah ay xoog ku soo qaateen dadna aas ku dhintay dadna aas ku dhaawacmay muddo isbuuciyo la isku hay marka daba si xoog lagu qaatay adu wadiiqo dheer kadib aan maqalnay marka daba ciidanka amniga dawladda federaalka inay gacanta ku dhageen alxamdulillaah baan leenahay hadii oo dawladayni ay qabatay dadkii laga soo boobay dhagaxaas oo deegaanka ka soo jeeday u dhashayaanahay waxaan rabnaa inaan sheegno oo cadeyno dhagaxaas cid lagala macaamilay iyo cid lagula heshii inay jirin aan cadeynayna waxaan cadeynaynaa dhagaxaas cid lagala heshii inay jirin xoog lagu soo qaatay ciidan fara badan meeshii u imaaday dadkii ninkii imaadaba xabad hoosta laga gelinay muddo isbuuciyo ee meesha dagaal as ka dhacay dad ay ku dhinteen dadna ay ku dhaawacmeen dadna lagu xirxiri oo ilaa hadda meel ay jiraan aan la ogeyn intaasaan mas'uuliyiinta iyo dawladda aan u sheegaynaa dhagax deegaanka laga soo boobay inuu yahay oo dadkii lahaay laga soo dhacay inuu yahay aan cadeynayna ugu dambeyn waxa ka hadlay taliyaha macawisleyda deegaanka Ceel Cali ee gobolka Hiiraan Maxamed Meelawe waxaana uu sheegay markii dhagaxa laga soo qaadayay deegaanka oo dagaal culus dhaxmaray ciidamada macawisleyda iyo sidoo kale dadka deegaanka oo isu dhinacayo sidoo kale al-shabaab halkan aan ka cadeynayaa in dawladda federaalka waxaan u sheegayaa in dhagaxaasi si sahlan aan lagu soo helin faataxa aan lagu soo qaadanin dagaal lagu galay nimanka la yiraahdo khawaarijta al-shabaab meeshaas 7 maalmood dagaal uu ka socday oo goos wiilal yar ay ku dileen nimanka al-shabaab meesha ay ka qabsadeen
kuna dileen deegaanka ceel cali deegaanka Booqable kadib meesha weerar badan uu ka dhacay ilaa 7 habeen uu ka socday al-ultim ugu dambeyntii adiga nimanka waa naga itaal roonaadeen dhagaxin siday ku qaateen marka waxaan halkan ugu cadeynayaa dawladda federaalka in dhagaxaas ay heshiis iyo wax habeeraatay ay ku soo qaadeen nimanka la yiraahdo shabaab oo lacag ay kala soo baxeen oo ay xoog iyo awood iyo itaal ay ku soo qaateen dadna uu ku dhintay Abdiwaxid Maxamed Aadan wararka dalka News TV magaalada Beledweyne